deeqa kala duwan oo laga soo kala diray daafaha dunida ayaa maanta la soo gaarsiiyey guddida abaaraha ee gobolka Gabiley taasoo qaybo kamid lagu soo hagaajiyay maamulka degmada Gabiley iyo Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ah salaadiinta gobolka Gabiley deeqahaasi oo farta laga saaray balasaabka gobolka Gabiley oo ah gudoomiyaha guddida abaaraha mas'uuliyiintaasi oo halkaasi ka hadashay ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay taakulaynta abaaraha iyo cidda soo dirtay deeqda maanta la soo gaarsiiyay aad runtii waxaan ugu mahad celinaynaa dadka kala duwan ee lacagaha soo gaarsiiyay guddida abaaraha ee gobolka ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa dadweynaha qurbaha ku nool waxaan si khaas ah ugu mahad celinaynaa Sultan Ibrahim oo kamid salaadiinta waaweyn oo la oran karo hadda gobolka uu joogo waxa uu ku soo kordhin karaa Sultanka aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ay ugu horeeyaan dadka reer Gabiley ee uu Sultanku yahay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ay ku soo hagaajiyeen $15,000 oo maanta guddoonsiyay dadka aad baan ugu mahadnaqaynaa Sultankaba maanta halkan waxaan ka guddoonay deeq lacageed oo qadarkeedu yahay $13,576 dad muxsiniin ah oo walaaliheen ah oo dadka qurbo-joogga ah deeqdu waxayna soo gaarsiiyay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar $15,000 waxaa isla jira Farxaan Cusmaan Xaaji Cabdi $2,576 waxaa jira $6,000 oo ayna soo gaarsiisay jaaliyadda Canada oo ay maayarka ayna soo gaarsiiyay inoo soo wakiisheen waxaan ku wareejinayaa lacag dhan $15,000 oo ay soo gaarsiiyeen jaaliyadda Gabiley kaalmo dhan $2,576 oo ay soo gaarsiiyeen magabdhaha jaaliyadda dalka Holland Mukhtaar Nuux Ibrahim on Cable TV